Filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa iyagoon la tusayo gabar la dhahayo Angela oo wicitaan ka heshay qof aan la aqoonin. Waqtigaas Angela waxay u malaynaysaa inuu qofkii soo wacay uu yahay ninkeedii oo koraan kala tageen. Angela waxay ku dhawaaqday magaca ninkeeda talo sababtoo ah ma lahayn cod. Laakiin waxaa soo baxday in qofka wacaya uusan ahayn ninkeedii hore ee talo balse uu ahaa dhalinyaro lagu magacaabo Diego oo ah wiilka uu dhalay dhakhtarka dhimirka ee Angela inta badan tagto. Waxaan ogaanaynaa in uu si qarsoodi ah u jecel yahay Angela. Waqtigaas wuxuu xitaa u yeeray Angela isagoo gacmihiisa ku ciyaaraya uu ku faanayo codka Angela. Kadib markii Diego uu soo jiitay wuxuu ku dhagay telefoonka isla markiiba wuxuu biyaha noloshiisa ku tirtiray warqad kadibna ku rid faylka wuxuuna qoray taariikhda markii uu sameeyay. Hal habeen Angela oo aan dan ka qabin aqoonsiga wacaha ayaa ku casuumtay in ay gurigeeda timaado ay wada casheeyaan. Angela ayaa markaa kadib sugaysay in uu yimaado gurigeeda laakiin saacado ay sugaysay kadib ma uusan imaan. Angela ugu dambeyntii waxay heshay madax xanuun kadib markii ay ku dhamaysatay hal dhalo vodka inta ay sugayso isaga. Kadibna waxay go'aansatay in ay wacdo wacaha waxayna sheegtay in aysan kor u qaadi karin. Diego oo wax ka maqlay ayaa isla markiiba yimid kirada hooyadii Angela wuxuuna markiiba u qaaday dhakhtarka. Sheeko gaaban Angela ayaa ugu dambeyntii soo toosay oo way la yaabtay sababtoo ah waxay horay u jirtay isbitaalka. Dhakhtarka ayaa intaas kadib sheegay in Angela loo ogolaaday inay guriga tagto balse Angela ayaa weydiisay cidda ay tahay qofka isbitaalka keenay. Dhakhtarka ayaa ku jawaabay in qofka isbitaalka keenay uu ahaa dhalinyaro lagu magacaabo Diego. Waqtigan xaadirka ah Angela way la yaabtay sababtoo ah ma lahan wax aqoon ah lagu magacaabo Diego iskabada dhalinyaro ah sababtoo ah waxay dareentay in dhacdooyinkii dhawaa ay ahaayeen kuwa la yaab leh. Kadib markii ay isbitaalka ka soo laabatay waxay isla markiiba la tashatay dhakhtarkeeda dhimirka ee joogtada ah oo aan ahayn hooyadii Diego. Wax yar kadib Diego hooyadiis ayaa tagtay waxayna ka tagtay Angela keligeed. Kasoo baxday xiisaha Angela markaa waxay tagtay inay ku socoto meesha waxayna si qalad ah u soo gashay qolka Diego. Xitaa si qalad ah u qaaday folder buluug ah oo ay ku jiraan biyo nolosha Diego ee. Kadib markii la furay ayay la yaabtay sababtoo ah waxay magaceeda ku aragtay warqad kasta faylka ku jirta waxayna ka sii wareersaneyd dhacdadan. Kadibna habeenkii Angela oo horay u ogeyd aqoonsiga wacaha dahsoon ayaa kadibna ku hanjabtay inay booliiska u soo sheegi doonto. Laakiin maalintii xigtay kadib markii Diego uu guriga ka yimid iskuulka wuxuu arkay warqad ka timid Angela. Waxaa ku qornaa inay Angela cafin doonto Diego inta uu doonayo inuu yimaado kiradeeda habeenkaas. Ugu dambeyntii Diego ayaa si baan ugu yimid kirada Angela. Kadibna way wada cuneen iyaga oo aan dareemin naxdin leh waxayna ka hadleen muusikada sababtoo ah si kadis ah Angela waxay ahayd macallin muusiko ah. Wadahadalkoodu weli caadi ayuu ahaa ilaa si lama filaan ah Angela uga hadashay nolosha biyaha ee Diego taas oo Diego ka dhigtay mid xishoodo isla markiiba laakiin Angela ayaa ka hortagtay waxayna sii waday in ay ka foorariso Diego ilaa ugu dambeyntii ay ku faraxsanaayeen waxayna bilaabeen inay jacayl Diego habeenkaas joogay kirada Angela ee. Subaxdii xigtay markii Diego uu gurigiisa ku soo laabtay waxaa la sugayay aabihii oo walaac ka qabay maadaama uusan guriga imaan. Laakiin Diego ayaa ku dooday inuu xalay joogay gurigii saaxiibtinimo. Dugsiga kadib Diego wuxuu ciyaaray kulan uu saaxiibkiis Guillermo hoose. Xilligaas Diego waxa uu u sheegay waayo aragnimadiisa diiran ee carmalgalmada ah lagu magacaabo Angela. Guillermo ayaa la yaabay sababtoo ah dhadhanka cajiibka ah ee Diego. Wiil yar laakiin dadiisa 2 jeer ayuu jacayl u sameeyay haweeney. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa ogaaday hooyadii. Waxaa soo baxay in hooyadiis uu helay folder ay ku jiraan biyo Diego ee nolosha in Diego ururiyay. Hooyadiis ayaa markaas la weydiiyey in arrintan ay la xiriirto Diego oo xilli hore gurigiisa soo noqonayay muddooyinkii dambe. Laakiin Diego ayaa ku dooday in uu joogay guriga Guillermo dhowr maalmood wuxuuna shaaca ka qaaday in uu ahaa lafar isku jinsiga ah. Wuxuu sheegay in si uu u daboolo xiriirka uu la leeyahay Angela. Hooyadiis oo maqashay in aan wiilkeeda fahmi karin. Marka la soo koobo xiriirka Diego ee Angela wuxuu bilaabay inuu noqdo mid adag. Xitaa Diego kama xishoonin inuu Angela u soo bandhigo Guillermo. Wuxuuna ku casumay casho. Marka ay cashadii dhamaatay Diego wuxuu yimid gurigii Angela si uu jacayl u sameeyo sidii caadiga ahayd. Laakiin si lama filaan ah walaashiis ayaa u yeeray waxay ku tidhi haddii aysan jirin qof guriga joogo. Sidaa darteed Diego ayaa walaashiis u qaaday gurigii Angela isaga oo la joogay. Muddo dheer ka hor guriga Angela walaashiis waxa uu yeedhay hooyadeed weydiisatay halka ay ku ekayd waxay ahayd daacad ah waxayna ku jawaabtay in ay guriga Angela la joogtay Diego.
sababtoo ah Diego hooyadiis ayaa ugu dambeyntii ogaatay in Diego badanaa uu joogo guriga Angela. Kadibna waxay la kulantay Angela waxayna sheegtay in ay sameeyeen wax laga hadlin waayo. Xiriirkoodu wuxuu ahaa sida hooyada iyo wiilkaba, gaar ahaan markii Diego uu weli dhalinyaro ahaa. laakiin sida ay sheegtay Angela, wax qalad ah kama jiraan xiriirkan waayo dhawaan Diego ayaa noqon doona qof weyn oo ay sidoo kale isjecel yihiin. Diego hooyadiis ayaa markaa ka mamnuucaysa in ay xiriir yeeshaan. Waxay xitaa daawan doontaa Diego waqtiga oo dhan si ay uga hortagaan in ay kulmaan. dhacdadaas kadib Angela ayaa mar kale qalbi jabtay, waxayna ugu dambeyntii go'aansatay in ay Diego u ogolaato. maalintii xigtay markii Diego uu booqday tirada Angela, waxaa laga mamnuucay in uu galo. Diego ayaa markaas isku dayay inuu waco Angela, laakiin ma jirin wax jawaab ah. Tani waxay sidoo kale Diego kacsan sida haddii uu naftiisa laga badiyay. hooyadiis ayaa markaas si tartiib ah u sharaxday in Diego uusan diyaar u ahayn maskax ahaan ama agab ahaan in uu xiriir ka sii daran la yeesho, gaar ahaan haweenaydadeeda 2 jeer ahayd Diego. Diego wuxuu u muuqday mid aamusan oo caqli gal ah, laakiin xaqiiqdii ma uusan danaynin talada markaas. hal habeen Angela ayaa si lama filaan ah u yeertay, waxayna ka codsatay Diego inuu yimaado gurigeeda. iyadoo aan fikirin, Diego ayaa isla markiiba yimid kirada Angela, waxayna ku dhamaadeen inay jacayl sameeyaan ilaa subaxdii. waalidiinta Diego oo arrintan ka ogaaday kaliya ma aysan sii dayn, waxay isla markiiba kulan qoys la yeesheen Diego. kadibna waxay ku cabteen Diego sababtoo ah Diego ayaa walaalkiis yar ka ogaaday samaynta jacaylka iyo dhaqdhaqaaqyada Diego ayaa sii daayay biyaha noloshiisa. laakiin waxaad moodaa in Diego uusan dangelin, waayo waxa uu maskaxda ku hayo oo dhan waxa uu awood u leeyahay inuu jeclaado Angela. maalin maalmaha ka mid ah, halka Diego weli iskuulka, wuxuu go'aansadaa inuu ka cararo iskuulkiisa uu raaco Angela baabuur. waxay u muuqdaan kuwo ku faraxsan wada oo aad og tahay waxa soo socda dhacaya. filimka wuxuu ku dhammaanayaa halkan. fadlan ha ilaawin in aad muuqaalka la isaartid. mahadsanid.